qaatay anigu waxaan ka mid ahay dadka xusbigan taageera anigu iskama taageera macalkaadhka waan haystaa waan qaatayba waxaan idiin sheegayaa waxa weeyaan gabadhu markay reerkooda berigii hore u tegi jirtay waxay ka soo qaadan jirtay xoolo la odhan jiray dhibaad maanta maxamed kaahini waxay soo dooneen dhibaadkuna oo codkii iyo siiyaan idin leey waxaan kaloo taa ku darayaa calanka wadani wuxuu eegyahay baa layidhi dalka la yidhaahdo holandna waxaa layidhi dee markii kubadda cagta ciyaalkan sheegay nimankan ciyaaro kubadda cagta ama daawadaba markii holand la soo gasho kubadda cagta waxaa la yidhahdaa waa tin holand wacdare soo dhigtay hadhow toole markay fiinalka ama semifinalka soo gaadhaa 5 iyo 6 iyo waxa lagu dhuftaa marka waxba ha u biqina hadhow toole 5 iyo 6 iyo waxbaan ku dhufaanaynaa insha Allah calanka kulmiyana wuxuu eegyahay dalka la yiraahdo Brazilna waa waddanka ugu badan ee koob qaaday wuxuuna haystaa 5 koob wuxuuna haystaa 5 koob inaga 2002 doorashada ciyaalka marka kubadda laga badiyo waxay yiraahdaan waan kaga marmara 2002 baa marka inaga 2002 waa laynaga marmara saddexdii tobankiina waynu helna 17 waynu helina iyo qaar kale badan marka ilaa 5 gaadhna ma ahaan cid kale xusbi kala dalka iskama laha marka gabay baan sidaa horta inta aan kaftan iyo kaga imaad wasiirada dhamaantooda aan salaamaya ugu horeeyo Yuusuf Xasan iyo Cuboole iyo wasiir Cadaan iyo wasaaradda warfaafinta ugu darbaanku waxa kamarada jooga mid hal gabay ku qabtay heli meeshid burcaana intaas ay dil hadama garat hadama ma garata khayrkay waxa iga reebaya kharashka weeyaan anagu nin iska hadlaya ma heem macalbuugatan qoraa Cadaan iyo ogow horta waxaan halkan aan uga mahadnaqayaa wasiirka deegaanka Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare iyo maareeyaha iyo maareey ku-xigeenka mubacada qaranka oo iyagu bari aan halka tagay si fiican soo dhaweeyay buugaagtana bilaash ugu daawacay Cadaan iyo adna shaqaalihii demeey marka waxaan leeyahay ninba ayaan dhaweyd ugu yiri maxaad reer abtiga miyaa abtiyaasha maxaad u taageeri weyday xusbigan wadan saan ku yiri danta qaranka abti ka weyn Soomaaliduna ninka ay ariga ku aamini weyday geela u dirtaabaali ninka 82 xildhibaan maamuli kari waayay 4 milyan sidoo ku xukumi karaya waliba 12 sano 8 la ciifanay 5 sanana iyo 4 milyanna maxaa dhici doona marka gabaygii baan idin bilaabay horta fariintii ugu horeysay ee Musabbix u timaada aniga iga gudoomo Maxamed Kaahinow aniga iga gudoon marka tagaysidna ha iga tago israacayna insha Allah marka gabaygani cirramid baan leeyahay habeen dhaweed buu dad buu isku dirdiray war waxa cod ku helimay sida wax cad dadka loo hor imaadniyo sana carabi waa gabadhiisa u gabiyo markaas uu ku yiri dakeeyay dulmaan kugu qaba waa hal ii dareen rigdil waagaya qadaf soo waa lagu dilooba marka ina galaalla waajimiyo gabayadii waxa ka horeeyay balidhig iga tijaabi baan oranay marka gabaygu wuxuu oranayaa in dhaweedba waataana tirin dhaabadii gabaye wax waliba dhacdu leeyahay iyo sumad la dheegtay hadduu xarafku dheeliyo maansadu way dhimir xumaatay dhuuda gabayga rag baa dheegtay kaligood dhacdadii sanaan iyo cilmaan dheera ku waabnayna aniguna ma dhaafsin halkay niman ku dhaateena arartuba dhisbay u tahay gabay dhamaantii bali dhageysta maantana waa dhalashadaydii nimayo hodhan baalbaan sida iyo dhibic mihigaana sidii dhool hilaaca nafluhu dhowraya abide dhankii aad ka eegtaba
xumaha waa ka dheer yahay dhaliil iyo laguma oga dhufasho reeraad xilkasnimada dheer baa wax garad dhaabadii tahay alla ilaahay dhabcaal baa waayaha dhiila foofsada ee muusana taariikhdu dhigaan dhira ku waabnayna waatuu ka dhiidhiyey dhamacdii saarneed ee dhibaatadii siyaad buu u nacay guridhigiisii iyo dhaqaalihii adduun buu ka tegey dhaqasho xoolaade dhuunigoo loqojiye ma helin dheefta nololeedee alla ilaah wax layskuma dhuftee waa han noo dhigan dharaaro kooban baa ka hadhay dhaarintii qaran kuu dhiibnay muusow xilkii dhiibsanaan jiray ee geesaha ka dhaab dowladnimo waa dhalashadaadii dhaqaalihii iyo difaacana adkee waa halkuu dhigan markaas saddex madaxda way dishaa waatii la yidhi gareexsan guddoon jicsan iyo gacmo laaban markaa waxaan idhi dhabcaal iyo bakhaylnimo waa madax dhimashadoodii iyo gacantaada dhabarkii ha ku xidhin dheega dacalkiisa hana dhiibin sidii dhoodimar fars dee yaani xooluba kaa yaacinaha sidaa odhan de hana dhiibin sidii dhoodimeer farase markaa cadaaladda dhowr islaam dhidiki weeyaane gareexa ninkii dhaarsadaa dhaqayadeedi maaliye dhaaxuu ina saweyna gartaba dhaabadayn jiray guddoonkaaga dhoomiya ka daadhaanka geedig dee nin go-aan laba tahayo waa la sheegayey halkaa kaga sii wad baan ku lehay guddoonkaaga dhoomiya ka daadhaanka geediga ee bulshadana dhegayso waa dhaabadii qarana sixir bararka dhaawacay ma oga dhaymo nololeedee dhafakaarka waxa ugu wacan dhalashadoodii dee xukuumaddu dadka raashin kama iibisay iyadu cashuurtunbay dadka ka qaada markaa dadka raashinka keenunbaa sixir bararka keenay markaa nin walba in adeerkii u dusha kaga fadhiya hadday dahabshiil noqon leedii hadday nin kale waxay ka cabanayaanay leeyihiin sixir bara dee inaadeeradii horda iskala soo hadlay lacaaqilaad haysataan may waalin dadka sixir bararka dhaawacay ma oga dhaymo nololeedee dhafakaarka waxa ugu wacan dhalashadoodii iyo hadduu guri dhis leeyahay aloolhidibkii weeyaan dhaaxuu musuq maasuq soomaali dheegtay feedhaha ee muusow ka dheere raggii xilka aad u dhiibtid afartaa dhugashiyo dheehashay qurux dhee afar kalena dhambaal iyo udubdhegaygii dheh ninuu kulmiyo dholoo dhaarsadaa tahay nin siilaayo dhooldhooliyo dhowray baa tahay nin waxgarad loo dhameeyo dhaaday baa tahay dhallinyaradii tahriibiya waxaa ku dhacay dhuuni raadsada ee dhaqankii islaam iyo ka tage afka dhalashadiisiyo dhuyaal iyo tacabir bay dhululu aadeene waxay dhowrayaan muusow qarandhiskaaga iyo dhagixiyo kale guraan ciidda dhoobada dhalintaba ogow waa dowlad dhinaceede lafta dhabar ruuxaan lahayn baa socodku dhibayaa ee farmaajo adigoo u dhigmoo geysinimo dheere wanaagaba inaad dhistaa waa halkuu dhigana xumaantaba ka dheerow waa dhuxula naar dee yacni haddaan daansan iyagu inoo yimaado maahaan markaa maxamed kaahin baa joogo kolba guddoomiyaha muuse bixi waa laga sugayaa ciduu ku wareejiyaba anigu se maxamed kaahin baan taageersana oo ninka kale anigu maalintan kulmiye ka tegaya waa maalinta la yidhaahda in xaashiya cid kalaa loo wadwadaa laakiinse markaa maxamed kaahin xusbigana sidii la sheegay oo xusbigii mujaahidiinta markaa waxaan nidhi wasiiro fara badan oo anugu taageersanaho cadaanigaasi ka mid yahay hadduu hankiisa halkaa kasii sarreeyo dee waa yeelgadii laakiinse inuu soo cesho mar labaad ayaan wasiiro badan doonay markaa waxaan idhi wasiiradu dhammaantood waa dowlad dhabarkeeda ee dhowraan caashaqaa jiro hawsha ii dhigayo shukri baan dhambaal u dir waa shukri xaaji ismaaciil baan shukri baan dhambaal u diri murti aan dheegtay keligeeda waxqabadkeeda dhilan baan dhowrayaa abide wasiirada dhiggeeda kartay dhaaftay keligeed dhiliid inaadan siin muusoo adaan kaa dhur sugaya dhiliidkii caadiga ahayd inaadan eryinba dhiliid inaadan siin muusoo adaan kaa dhur sugayaaye xukunkaagu waa inuu dhaafaa dhaahar gudubkeeda laasqori dowladi ka dheer iyo talo la dheehdaaye dhisitaanka dowladnimay kaa dhur sugayaane adigaa dharaar iyo habeen shacbigu ku dhitinayaaye siilaanyaba dhigiisaa taho way ku dhisayaan markaa dhaaxuu ina kaahin howlaha dheegtay keligii iyo guddoomiyaha u dhiib waa udub dhiskaagii iyo dharaar iyo habeen xumo waa ka dheer yahay musuqaa dhigga kaa eriyo ceebta kuu dhuro ee nin intaa ka dheer baan hayaa dhaarta dibadeed markaa dee adu guddoomiyaha aad madaxweyne aad noqotay dee waan ku hayaa ninkii aad bedeli leh
انت يا رنادي انا جاي خصوصاية دي فرين ويانو نيمان كاسم مدحدون بايقاسي قادة ليد دميان دي مريا waayahay waxba gabaygu ila dhaafin dawga loo dhigay dugsi sare in dhamaynayo dhowray baan waxba gabaygu ila dhaafin dawga loo dhigay dugsi sare in dhamaynayo dhowray baan ahay dhirin tacliimeed ayaan dhaadayaa abide dhulka inaan u soo dhehdaan raba dhereg aqooneed dhaqaalihiisa inaan bartaan jecla dheeman iyo luule waxa dhoofkii haya dhigasho beerad inaan agriculture ka soo barto didiyadaha iyo meelaha goortaan dhameeyana dhiijiga agaasima waa dhigashadayda dee aad baad u mahadsantihiin wasiir cadaan inaan ku sugayaa waan leeyahay